هاي جايز السلام عليكم وانا قاعد افتح ابراهيم ان حق نقلا سocotana waxa weeye Somaltech maanta waxaan ka hadli doonaa cashir muhiima oo ku saabsan qaabka aad haddii computerkaaga cuslaado aad uga dhigaysid mid faster ah sidoo kalena aad si drive-kaaga u clean gareynaysid marka waxaan soo qaadan doonaa 5 ilaa 4 step oo kuu saamaxaya in aad faster ka dhigtid ood kor u qaadid maxay ahayday si drive-kaaga iyo computerkaaga oo uu kuu noqdo mid aad u shaqeynaya si fiican u shaqeynaya okay so marka waxaa jira qaabab badan oo loo hagaajiyo first time waxaa ka mid ah inaad soo furtay stepka koobaad wuxuu noqonayaa inaad recycle binka soo furto waayo recycle binka waxa ku urura wax kastood computerka ka delete garaysaa waxay u galayaan si temporary ah ayay u galayaan marka computerka waxaad u baahantahay inaad ka delete garayso so marka mar walbaan waan ka delete garayaa imika tusaale kale saddexdan baa ku jira okay marka saddexdaas waan ka delete garanayaa intaan selected ah okay marka stepkan wuxuu ku saamaxayaa haddii aad delete garayso maxay ahayday waxyaabaha kugu jira computerkaaga waxaad u baahan tahay waxay galaan recycle binka inaad kasii delete garayso kaasina wuxuu ku saacidaya maxay ahayday inaad kor u qaado performancega computerkaaga okay waxaan u gelaynaa stepka labaad oo noqonaya maxay ahayday waxaad search garaynaysa waxa loo yaqaano temp ama temporary ayaad ku qori doontaa oo temp loo soo gaabiyey TEMP okay kadibna waxaad odhanaysaa search kadib waxaa kusoo bixi doona filekan waxaa lagu shubaa waxyaabihii temporary computerkaaga ku jira macnaha uma baahnid weeye waxyaabahan waa temporary marka waxyaabahaas oo dhan waad inaad ka delete garayso ayaa maxay ahayday loo baahan yahay computerkaaga si uu u noqdo haddii kale waxay kaa qaadanayaan space bay kaa qaadanayaan marmarka qaar waxaa laga yaabaa 10 GB inay dadka qaar ku gaadhaan oo uu ogaan kari waayo waxa sababaya marka tanoo kalena waad iska delete garanaysaa kadib waxaan odhanayaa select all kadibna waxaan odhanayaa control D kadib waxaan odhanayaa continue marka wuxuu diidayaa faylka qaar marka faylka uu diido waad iska ignore garanaysaa okay waxaan odhanayaa yes okay kadibna skip baad iska odhanaysaa marka faylasha uu diido maxay ahayday iyagana waad iska ignore garanaysaa okay stepka labaad kan weeye so another step ayaa waxaad soo furi doontaa WinRAR-ka kadibna waxaad ku qori doontaa sidii imika kale temp one more time iyadana okay isagana waxaa kusoo bixi doona sidaad arkaysid maxay ahayday filekan sidoo kalena filekan waad dadkanaysa markaa stepbada waad raacaysaa ha iska delete garaynin maxay ahayday waxyaabo oo aan loo baahnayn ama maxay ahayday waxyaabo maxay ahayday computerkaaga risk u keenaya laakiin stepskan qaadun baad maraysaa waxayna ku samaxaysaa computerkaaga performancegiisa inaad maxay ahayday kor u qaado okay so waxaad samaynaysaa iyadana waad select garanaysaa kadibna control D baad taabanaysaa oo macnaha waa delete garanaysaa okay okay saad arkaysid iminka uu saarayaa so marka mar walba computerka shanta shay aanu samaantada samayn doono mar walba waa inaad computerkaaga aad ogaataa xaaladiisa si uu ku noqdo performancegiisu miduu aad u sareeyo oo maxay ahayday windowskaaga waxaan leeyahay si drive-kaaga ay ku noqoto mid clean mar walba okay so intaas markay dhamaato hadda waxaan aragnay 3 step baan aragnay saddexdaa step waxaan eegi doonaa iyagana maxay ahayday labada step ku xiga okay so marka mar walba waxaad ku dadaalaysaa in aad maxay ahayday performance computerkaaga aad ka shaqeyso oo aad delete garayso maxay ahayday waxyaabaha loo baahan yahay waxyaabaha aan u baahnayn loo baahan yahay inaad delete garayso okay step 4 baad u galaysaa step 4 waxaad soo furi doontaa start menu-ga kadibna waxaad ku qori doontaa uninstall so uninstall marka qorto waxaa kusoo bixi doona add or remove programmeska ayaad ka saaraysaa kadibna waad click garanaysaa so marka waxaa kusoo bixi doona dhammaan maxay ahayday appska iyo featureskooda aad isticmaashid okay so saxagan ka arkaysa hoose dhammaan waxaa ku jira programmeskii aan u baahnaa aan isticmaalayay kuwii aan isticmaalaynin oo dhan okay marka waxaad delete garanaysaa dhammaan maxay ahayday programmeska aanad isticmaalaynin ayaad delete garanaysaa so let's say anigu ma isticmaalayo maxay ahayday kaas ma isticmaalo so waan delete garanaya waxaan odhanayaa uninstall ayaan siinayaa okay
so waxaa jira qaar kaloo xaggana oo iyaguna maxay ahayd aan isticmaalin dhammaan wada baaraysaa wixii aanad isticmaalin oo dhan waad iska dhiid garanaysaa dhammaantood. Okay, so tan waxay ka dhigaysaa computerkaaga inuu ku shaqeeyo faster maxay ahayd si aad maxay ahayd u sarreysa inuu computerkaagu u shaqeeyo ayay ku samaxaysaa. Okay, so waxaan eegi doonaa stepka shanaad qaabkaad sameynaysid ee computerkaaga ka dhigi doona performancegiisa mid aad u fiican. waxaad tegi doontaa c drive-kaaga, waxaad right click baad siin doontaa, kadibna waxaad tegi doontaa propertieska, kadibna waxaad tegi doontaa toolska. so marka waxaan sameynaa exampleka waxay optimizing, waxaan optimize garaynaynaa maxay ahayd c drive-kaaga. so waxaan teginaa optimize, kadibna waxaad shuur garanaysaa maxay ahayd c drive-kaaga inaad dooratay. so waxaad odhanaysaa optimize markaan idhaahno, kadibna iska kala garanaysaa. Okay, kadibna waxaad odhanaysaa okay. marka kaasna wuxuu ka dhigayaa computerkaaga inuu shaqeeyo si maxay ahayd faster ah. Okay, so marka waxaan eegi doonaa last maxay ahayd optionka ugu dambeeya eed kaga dhigaysa computerkaaga mid maxay ahayd u shaqeysi fast ah oo aanu clean garanaysid maxay ahayd c drive-kaaga. kadib waxaad soo furaysaa start menu-ga, kadibna waxaad ku qoraysaa disk, kadibna waxaad arkaysaa disk clean up, kadibna waxaad dooranaysaa waxaa kusoo bixi doona maxay ahayd shaygan baa kusoo bixi doona ama maxay ahayd boxkan yar, kadibna okay baa odhanaysaa. so markaad okay tiraa waxaa kusoo bixi doona dhammaan shayadan, kadibna waa wada select garanaysaa dhammaantood. so okay, so dhammaan marka waa doorto waxaad odhanaysaa clean up system fileska. so kadibna waxaad odhanaysaa yes. so okay baa odhanaysaa. so it might take time a while to finish the cleaning. Okay, marka waa iska sugaysaa waxoogaa ba yar qaadanaysaa intay cleaningka sameynayso. so marka waa sugaysaa. okay, wuu dhamaaday, kadibna waxaad sameynaysaa waa wada haddana wada maxay ahayd tigtaa saaraysaa. boxkan baa kusoo baxay, so boxkan baa kusoo baxay, isagana tigtaa wada saari doontaa. okay, markaad dhamaysid kadib waxaad dooranaysaa okay, kadibna waxaad odhanaysaa delete fileska. so also tanna waxay qaadanaysaa waqti inta ay delete garanaysa macnaha fileski. okay, so saa arkaysid maxay ahayd clean upka inoo dhamaaday. so waxaad arki doontaa xaggan maxay ahayd sidaadii maxay ahayd waxay noqotay mid clean ah. marka hore waxaa igu jiray ilaa 392 imikana 4 bay maraysaa 0.1 GB. so macnaha waxaad saartay weliba aniga muu badnayn waxyaabaa ku jiray, waxaad saartay waxyaabihii dhammaan consume garanayay spaceka diskigaaga. marka haddaba casharo sida kuwa lamid ah oo maxay ku saabsan computerka mobileska waxaasoo dhan soo heshid, fadlan waxaan kaa codsanaa channelkan in aad kusoo beeratid asxaabtaadana aad la wadaagtid. waa mahadsantahay.